xaafadda Suuqbacad gaar ahaan inta u dhaxaysa Baar ayaan isgoyska Tawfiiq degmada Yaaqshiid ee gobolkani Banaadir ayaa laga hirgeliyay qaybta labaad ee Nobel School of Science and Technology maamulaha guud ee Nobel School Cabdullaahi Abuukar Aadan marka hore waxa uu sharaxayaa ujeedada qaybtan labaad ay u fureen iyo muhiimadda bulshada u leeyahay iskuulka waxaan rabaa in la wadaago bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta iyo ardada ku nool magaalada Muqdisho in iskuulka Nobel of Science and Technology oo si rasmi ah u bilaabay waxbarashada sanad dugsiyeedka 2021-2022 sida nooga barateen iskuulku waxa uu bixiyaa maadooyinka scientific sida biology-ga, chemistry-ga, xisaabta iyo physics-ka oo lala qaadanayo maadada English-ka sidoo kale waxa jirta koorsooyin gooniya sida fasalka 8aad lagu qaadan doono maadooyinka cilmiga bulshada, Carabiga, Sayniska, English-ka sidoo kale waxaan rabaa in bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago iskuulka Nobel School of Science and Technology in fasalada form 4 ugu talagalay koorso gooniya sir ay ugu talagalaan ama isku diyaariyaan sanad dugsiyeedka 2021-2022 sidoo kale maadooyinka laga diyaarinayo waxa kamid ah maadada physics-ka waa xisaabta, biology-ga iyo chemistry-ga si ay u keenaan natiijo waxgala kaalimaha horan ay ka galaan imtixaanka qaran ay qaadayso wasaaradda waxbarashada sidoo kale fasalada aan qaadano waxa kamid ah ama aan soo kordhinay sanadkan maadooyinka diyaarinta iskuulka oo hore u bixi jiray qaybo kamid ah oo maadooyinka aasaasiga sidoo kale sanadkan markaan aragnay baahida waalidiinta iyo codsiga ka yimid dhanka deegaanada kala duwan xaafadaha magaalada Muqdisho waxaan soo kordhinay qayb cusub aan ka furnay inta u dhaxayso isgoyska Tawfiiq iyo isgoyska Baar ayaan dhanka Suuqbacad sababaha aan u furno waxa kamid ah markaan aragnay codsiga nooga yimid waalidiinta ardada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada baahida ay u qabaan in la ballaariyo iskuulka loo sameeyo xarumo cusub dhammaan si magaalada bulshada ku nool ay kaga faa'iideystaan macallimiinta khibradda leh ee iskuulkaas wax ka dhigaan sidoo kale anagoo ka jawaabayna baahidaas waxaan bilownay diiwaangelinta fasalada kala duwan ee baranjigaas sida fasalka 8aad fasalka form 4ka iyo form 1ka iyo maadooyinka diyaarinta oo dhammaan iyaguna xaadir ku ah xafiiska baranjiga cusub ee ku yaalo agagaarka isgoyska Tawfiiq dhanka Suuqbacad sidoo kale waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed ardada Soomaaliyeed waalidiinta jecel waxbarashada iskuulka Nobel waxa uu diyaar u yahay in uu idinka diyaariyo maadooyinka scientific-ga waxaan leenahay soo gaara iskuulka waxa socda fasalada kala duwan casharada kala duwan sanad dugsiyeedka diiwaangelinta dhammaan waa diyaar marka waxaan leenahay soo dhawaada labada 2017 ayaa la furay dugsiga Nobel of Science and Technology kana mid ah dugsiyada faca weyn ee ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana waxa lagu dhigaa maadooyinka scientific sida xisaabta, physics-ka, chemistry-ga iyo biology-ga sidoo kale dugsigu waxa uu bixiyaa maadooyinka kale aasaasiga ah iyadoo macallimiinta wax ka dhiga ay sheegeen diyaar inay u yihiin ummadda Soomaaliyeed inay wax baraan waliba si hufan 7 - 3 is 4 what is waa maxay loo qeybiyey 6 divided by loo qeybiyey 2 is waa 3 fasaxyo ay ku maqnaayeen ardayda dib ayaa loo furay iskuulka si caadi ah ayayna u socdaan howlaha shaqo iskuulka waa kuwan ardayda oo ku xaadira fasaladooda kuwaas oo qaadanaya casharada dugsiga bixiyo dhowr arday ayaa ka qalin bedelatay kuba kala hadda ayay dhigtaan wiilal iyo gabdhaba leh qaarkood oo inala hadlay oo isugu jira ardayda qalin jabisay kuba hadda dhigta waxay xuseen faa'iidooyinka badan ay ka dhaxleen aqoontii ay dugsiga ka barteen magacayga jaan halkan ka dhawaajiyo waa Ibrahim Cabdi Ibrahim dhigta iskuulka Nobel Science and Technology kana barta maadooyinka scientific-ga waxaan ahay arday dhigta fasalka form 4 runtii markaan ku soo biiray iskuulkan waxaan ahay arday kaliya dhanka scientific-ga haddii hadda
aan la fiiriyo waxaan ahay arday dhanka ICT-ga ku wacan wax badan ay iska bedelay waxbarashadayda way kordhay waxyaabo badan aan aqoonin aan ka bartay iskuulka macallimiin wanaagsan aan joogo faa'iido inta la eg bay ku leedahay inaad afartan maadada scientific aad barato maxay ka caawin karaan wax badan ay caawin karaan mustaqbalka iyo iskuulka maxadka aad dhigto isagoo waxaan aniga oo kasta wax ka seen oo iskuul yariis iska dhigi jiray hadda laakiin iskuul fiican oo nooba iskuul lahaasoo kale hay tayada waxbarashada iskuulka iga waran iskuulku fiican iskuul aad u wanaagsan macallimiin aad u wanaagsan iyo arday fiican aan joogo isbedel dhanka scientific ebel yani maadooyinka scientific qaar way ugu adkaayeen laakiin hadda fiiskiisa kale xisaabta kale waa fahmaa calculationada sida dhanka Englishkana graamarada xoogaa isbedel weyn ka dareemay iskuulka Nowal iskuul oo taariikhdiisa soo koobi kara ma ahan waa iskuul aad iyo aad u tayo fiican la iskuulan sheegay iskuulkan arday badan waa qabtaa sanad walbana inta la diiwaan geliyo xadidkeeda lama soo koobi karo tayada iskuulkana horta lama soo koobi karo iskuulka waxa dhihi karnaa jaamacad ma uusan gaarin laakiin iskuul ka dhow hadda magaalada aan ku arkay ma ilaaha tayada waxbarashada way wanaagsan tahay tani inta ku soo biiray macallimiin wanaagsan waa joogaan iskuulka ardayda adiga asaagaaga ah waxa ugu baaqlay in iskuulka Nowal ay soo booqdaan waa iskuul tayo leh oo fiican Faaduma Cabduqaadir Xasan Radio TV-ga Dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta